horjooga sare oo ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab iyo darawalkiisa ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ee ka howlgasha gobolka Shabeellada Hoose. Ibraahim Maxamed Bito oo ah horjoogihii maleeshiyada argagixisada al-shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu isaga soo tago kooxda kadib markii uu garowsay inay baalmarsan yihiin xaqa islaamnimada ayna xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed. al-shabaab in si qalad ah ay dad u dhumusay oo u baadiyootay oo waxaas oo masaakiinta ay lacag ay xoog ay ku qaadanayso xoog wax aan jaranaya xoog ku saaranayso oo lacag ku qaadanay masaakiinta wax ma haysto oo waana diinta ka gabano hayaan. Bito ayaa sheegay in dagaalo badan ay soo hor yimaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayna kooxdu kala kulantay jabaad u xoogan taasi oo keentay inuu adkeyso waayaan dagaalka isla markaana ay ku dhuumaaleystaan kaymaha. Bito oo sheegay in kooxda argagixisada al-shabaab uu ka tirsanaa 9 sano ee la soo dhaafay ayaa tilmaamay in kooxda ay sii leecayso isla markaana ay la kulmayso guuldarro isdaba joog ah. dagaalkaas ay ku jirno hadan waa ka laabanay ay doqeynta ay gandarsho waxaa naga dishay oo doqeynta ah 60 qof ay ka dhimitay doqeynkaas markaasoo ay ka baxnay bariir. horjoogan ka soo golsa al-shabaab ayaa dawladda Soomaaliya uga mahad celiyay sida loo soo dhaweeyay waxa uu ugu baaqay dhalinyarada u dagaalamaysa kooxda argagixisada al-shabaab inay isaga soo tagaan maleeshiyada oo uu sheegay inay baalmarsan tahay islaamnimada. Bito ayaa cafis weydiisay shacabka iyo dawladda Soomaaliya waxa uu codsaday in lagu garab istaago sidii uu uga qayb noqon lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada al-shabaab oo uu tilmaamay inay yihiin cadow naxariis daran. dhanka kale Aadan Geedi oo loo yaqaan Aadan Dheere oo ahaa darawalkii Ibraahim Bito ayaa sheegay in al-shabaab ay ku duufsadeen isagoo 12 jir ah isla markaana ay ka faa'iideysteen caruurtinimadiisii. Aadan ayaa sheegay in hadda oo garaadkiisu uu ku filnaado uu cuntami weysay inuu ka sii mid ahaado kooxda al-shabaab oo uu sheegay in dhibaato badan ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ayna diinta ka saarayaan ciddii aan la dhacsanayn fikirkooda. anigu maxaa soo goosanay hadda dhibaatada oo aragnay dhib badan oo aragnay markaan dhibaato badan oo aragnay uu nagu soo xiriiray walaalahan markaan nagu soo xiriirinaan markaasaa ku soo biirnay dawladda Soomaaliyeed. taliyaha guutada 14 Oktoobar ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle Axmed Cabdi Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka isku soo dhiibay horjoogayaashan waxaana baaq u diray kuwa wali u dagaalamaya kooxda al-shabaab. dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah yaa waxa ku gaaray jab badan iyo cabsi badan ku gashay sidaa darteed markii jabeen kadib Ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan xoogga dalka Soomaaliyeed oo saan looga soo horjeeda waa ciidankii xaq u dirka ahaa ee lagu yaqaan dawladnimada waxaan rabaa inaan isku soo dhiibo adigu rag dhalinyarta kamid ah soo xiriiriyay kadibna sidaas telefoonka lagu keenay waxaan soo dhawaada dawladdiini waan soo dhaweynaynaa fursada haysataan ka faa'iideysta kadib ayay go'aanka soo qaateen waxaan ka soo dhaweynay janaale afaafka hore janaale ayay ka soo galeen waan soo dhaweynay. Ibraahim Maxamed iyo Aadan Dheere ayaa tilmaamay inay jiraan boqolaal maleeshiyad ah oo ay ka go'aantay inay isaga soo tagaan kooxda al-shabaab waxayna dawladda ugu baaqeen inay dhalinyarada isku caawiyaan sidii ay isku soo dhiibi lahaayeen